hogaankii ahlu sunna ma ka tanaazuleen siyaasadda Soomaaliya inay ka qayb qaataan ama urur hubeysan ay noqdaan runtii waxa weeye ahlu sunna wal jamaaca waa caqiido weeye maaha siyaasad iyo waxyaabahaas maaha wax laga tanaazulana maahan laakiin wasiiradu waa inay ku dhaawacmaan daacadnimada la tusaa dadka khidmada loo khidmanayay mas'uuliyadda waa in la tusaa kulan wanaagsan waa TV-ga Shabeelle Muqdisho Soomaaliya waxaad ku soo dhawaataan waraysi kooban oo aan la yeelan doono madaxii hore ee xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan kaas oo ka hadli doona dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ka socda qaybo badan oo kamid ah gobolada Soomaaliya sidoo kale wuxuu ka hadli doonaa curashada bisha Mawlid oo inta badan dadka muslimiinta ay dhigaan xaflado kala duwan oo ay ugu dabaaldegayaan munaasabada bisha Mawlid Sheekh Maxamed Shaakir soo dhawaada maqash waa kaga madcelinayna waraysigan dalku waxa ku jira xaalad dagaal gobollo ka mid ah Soomaaliya dagaalaha ka socda u dhaxeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka ciidamada dawladda sida oo aragtaa dagaaladaasi ka soconaya qaybo badan oo kamid ah dalka runtii dagaaladani waa dagaal la dhihi karo dagaal dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed laga rabo inay u midoobaan waa dagaal waajiba in laga hortago nimankan khawaarijta ah ka hortaga laga hortagayana loo midoobo oo qolaba mar aysan meel cidla ku helin la iskana kaashado loona dagaalamo mabda'iyan aan loo dagaalamin adduunyo kaliya raadinteed loo dagaalamo caqiido loo dagaalamo ilaalinta diinta iyo dalka iyo dadkaba marka dagaal xaq waaye in lala dagaalamo khawaarijta loona midoobo ummadda Soomaaliyeedna waa ku boorinaynaa dawlad iyo shacabba waa tahay al-shabaab ku dhawaad 15 sano ay Soomaaliya ka dagaalamayaan ilaa haddana degmooyin badan ay ka taliyaan goorma ayuu dhammaan doonaa ay kula tahay dagaalka lagu jiro al-shabaab runtii muddo dheer haba socdo haddii loo midoobo waa la soo aftari karaa laakiin haddii degmada mar laga kaco oo degmadaas ayakuna ay isugu yimaadaan oo dadka xoogga saaraan waxa waaye dhibaatada waa sii joogaysaa marka in gobol walba degmo walba laga abaabulo dawladda iyo shacabka iskaashanaya ay ka abaabulaan dagaal looga soo horjeedo khawaarijta dagaalkaasoo fikrigii yacni ay ku faafahayeen oo madaarista dhexdiisa ay ku dhigayeen oo ay masaajidda ka fidinayeen oo maqaamaadka ay degan yihiin oo maraakista waa ay ka fidinayeen kulli si looga soo horjeesto loona dhammeeyo la isu bahaysto kaasaa looga hortagi karaa runtii waana madaxweynuhuna markii uu joogo Turki hadal fiican ayuu ka jeediyey runtii mabda'iyan in loola dagaalamo maahano dadka waxa ay ku shubeen laga shubo haddii ay joogaan gobolada hadday joogaan caasimadda hadday joogaan degmooyin hadday maamul goboleedyada dhexdooda yihiin iyo haddii ay dawladda federaalka maqaamkeeda ay joogaan intaba isku si loo wada arko madaxda waa galaan rayadka waa galaan meel kasta waa ciidanka waa geli karaan marka in niyada la hagaagsado si wanaagsan oo Ilaahay dartiisa inta loo midoobo qofka la dagaalamaya laftiisa la tawjiihiyo niyadiisa camalkaani waa camal wanaagsan oo Ilaahay rasuulkiisu in la sameeyo oo booriyay qofkii ku dhinta oo nimankaasi ay dilaan iyo qofkii ayaka dilaba Ilaahay rasuulkiisu oo u yaboohay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadiisa siinayo marka dariiqii lagu heli lahaa in lagu tawjiihiyo dadkiyo askarta xataa lafteeda shacabka laftiisa la tawjiihiyo oo la yiraahdo saa'isu dhisa saa'isu hagaajiya dariiqaani waa dariiq wanaagsan waa dariiq Ilaahay raalli ka yahay waa dariiq rasuulku raalli ka yahay aan isu bahaysano aan ku ajarsanno wax kale adduunyo kaleeta iyo midna yaanaan raadin madaxtinimo kaleeta iyo midna yaanaan ku raadin aan Ilaahay madaxtinimo uga raadinno inuu yacni maadaama Ilaahay cabsidiisiiba ay tahay oo Ilaahay rasuulkiisu duubaa liman qatalahum aw qataluuhu uu yiri in la isu bahaysto oo loo midoobo taasaan ku boorinayaa waa tahay dawladda Soomaaliya iyo shacabkaba
dad badan ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba qaabka dawladdu ay ku wajahayso dagaalka al-shabaab oo dadka deegaanka la hubeynayo iyadoo la beegsanayo beelahaasi oo dagaal ka qayb qaadanaya aragti ahaan ma kula saxsan tahay in dadka deegaanka dagaalada ay ka qayb qaataan runtii waxa waaye dagaalkan horta waxaa la rabaa inay hogaamiyaan dowladda federaalka inay hogaamida laga rabaa maamul goboleedyada inay ku gacan siido wax alla wixii ay u tari karto inay u tarto maamul goboleedyadu ay la dagaalamaan deegaamadooda kala dagaalamaan ka zuuliyaan dowladdu haymana ku samayso kor joogto ay u ahaato inta iyadu joogto ay haddana kala dagaalanto bad iyo hawo iyo beri intaba lagala dagaalamo markii intaa lagala dagaalamo waxa waaye dadka shacabka ay ciidankaani shacabku ka yimid dowladda lafteedu shacabkay ka timid shacabkaa loo wada khidmaynayaa ayakii laftooda difaacoodii waad og tahayoo ceelashii ka waxaynahayaan islaamihii iyo carruurtii bedilahayaan dagaalkaanina waa dagaal 15 sano aan ku soo jirnay oo aan horeba yacni aanu lahayn dad noogu kaalmeeya dowlad noogu kaalmayda marka haddii dowladdii kacdo shacabku kaco waa midii la rababa inay isu bahaystaan meelaha laga kacay maahane meelaha kalena la kiciyo oo isku mar halan bay lagu qaado markaas aysa iyakuba ilaa nimankaana ma badne waa mobile wareega waaye hadba meelay isugu tagaanay u wareegaan marka haddii meel kasta looga maalina lagu soo afjarhaya bila lagu soo afjaraya weliba bishaan hadda barakaysan oo rabiicul awwal inaysan dhaafin baan qabaa oo ummaddu inta u midowdo culummo iyo caamo iyo ciroole iyo cid kastaba caaqilba waxa waaye aad iyo aad loo soo afjaro oo niyo wanaagsanna lala yimaado dadkii la tawjiihiyo mas'uuliyadda dadka ay saaran tahay oo culimmadii ugu horreeyaan oo dowladdii iyo shacabkii iyo dhammaan iyakoo iskaashanaya waa in loo istaagaa nimankan ummaddii ibaadinayo baabi'inayo noloshaba aanu ogolayn in yacni isku si loola dagaalamo waa niman yani geedkan iska baxaaga geeda kale inay ka hoos baxaan ma ogola marka taasoo kaleeta niman waayo iyaku inay noolaadaan maahan inta kale aan nolol u ogolayn marka in loo wada midoobo laga zuuliyo waddanka taasaa aad iyo aad aan ugu boorinayaa waa tahay waxaa jiray ciidamo ahlu sunna u dagaalamay bilo ka hor ciidamadaasi wax luga ma ku leeyihiin dagaalada ka socda deegaanada galmudug gaar ahaan galgaduud jihooyinkooda kala duwan ciidamada la dagaalamaya dhamaba waaba ahlu sunna ciidamada la dagaalamaya waaba ahlu sunna hadde yaaba kaloo la dagaalamaba nimankan cidda taqaanaaba waa ciddaas weeye marka dagaalkooda aad iyo aadan u boorinaynaa in yacni dowladdu u tafaxaydato sida madaxweynuhu meel walbuu joogo oo nimankii u radinayo ula dagaalamayo afka in adinkana lagu daro waa in xildhibaanada la yiraahdaa hadda koor ma ana maqlin xildhibaan hebela meeshaas ku dhaawacmay ama ku dhintay laakiin waa maqlay xildhibaan hebela hotel hebel lagu qarxiyay oo mukayf hoostiisa lagu dilay waxyaabaas waa maqli jiray iyo wasiir hebel laakiin wasiiradu waa inay ku dhaawacmaan daacadnimada la tusaa dadka khidmada loo khidmanayay mas'uuliyadda waa in la tusaa waa tahay galmudug hoggaan dhab ma u baahan tahay oo dagaalka hogaamiya dad badan siyaabooyin kala duwan ay u dhaliilayaan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor runtii meel kastoo la jooga qofka waxna waa khaldaa waxna waa sameeyaa wixii khaldanna in la saxo wixii hagaagsana la isugu taniyeeday wey nimankan dagaalkooda wax walba oo dadka shacabka dhexdiisa ka jira waxaa ka sii dhib badan nimankan dhibkooda ka sii dhib badan marka waxbay ka owleeyihiin oo ka weeyihiin waxaa wax walba ka weyn nimankan inta loo midoobo la iska tirtiro oo la iska waxeeyo ummadan Soomaaliya waa muslimiin 100% waa ummad inta soo jireen waxaana lagu dhex talaalay waana fikrad ajnabi ah oo wadanka lagu talaalo dhiigooda lagu banaystay marka in loo midoobo taas weeye mid aan soo jeedinayaa tahniyada aan u tahniyadeynayo ummadda muslimiinta meel kasta joogaan dalashada bisha rabiicul awwal oo bishii nabigeena calayhi salaatu wasalaam koonkan loo soo saaray ah bishii caalamkan ilaahay subxaanahu wa tacaala soo daahiriyey ah ilaahay nicmadii adduunka iyo aakhiraba bishii ilaahay uu soo saaray nicmadaasoo ahayd nicmo midda ugu weyn nicmadaasoo ahayd nebiga soo bixidiisa calayhi salaatu wasalaam caalamkan loo soo saaray
oo uu dhashay dhalashadiisaas islaamku meel ay joogaanba waa u xafladaynayaan, waa soo dhoweynayaan, waa ku faraxsan yihiin, waa u dabaaldegahayaan. marka waxaan bogaadinayaa meel kastoo muslimiintu joogaan bixuluuli shahri rabiici alawal, bisha rabiicu alawal bilashadeeda baan ugu tahniyadaynayaa. waa bishii nicmada iyo nuurka, waa bishii gaalada iyo munaafiqiinta iyo bidcada kulligood niqmada iyo aafada ku ahayd, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka uu kor ka dhigay, iimaankii uu kor ka dhigay, ikhlaaskiisii uu kor ka dhigay, hogaamiyihii hogaamin lahaana ilaahay soo saaray, uu dhalay uu dhashay nebigu calayhi salaatu wassalaam, uu dhalay nebiguna calayhi salaatu wassalaam, dadkii dhaxlay uu soo saaray, ayakuna maanta ilaa laga soo gaaro waqtigiisii ilaa maanta sidaa ugu faraxsan oo sidaa u fidinaya. marka tahniyadaas baan ugu tahniyadaynayaa dadka muslimiinta meel kastay joogaan.